kamina dhalinta dhammaan riyooyinkaaga waa ku guuleysiga hadafyadaada waana wadada kugu hogaamisa farxada. guushu ma wax ku timaada biliya laba toona sababtoo ah waa wax aad u qaaliya waxaanay u baahan tahay dadaal aad u badan iyo shaqo adag. balse waxa laga yaabaa in adigoo sameynaya dadaal aad u badan inaad kaga tagto meel dhexda ah inaad rajo dhigto ama si aad la diris noqoto niyad jab. dhammaan waxyaabahani waa wax kugu dhici kara haddii aanad lahayn dabeecadaha iyo habdhaqanka ay leeyihiin dadka guuleysta maadaama guushu tahay wax khaas ah wuxuun baa gaaray dad khaas ah. balse ha warwarin sifooyinka ay u baahan tahay guushu waa sifooyin aad baran karto xataa hadday dabeecadaha yihiin qaar aad uga fog sifooyinka guusha. wadada guusha waxaa maro oo qura dadka xoogga u leenay u adkaystaan caqabadaheeda. wadadan waxaa ka buuxa diidmo lagala hor yimaado niyad jab, xanuun, qoomamo, guuldarro iyo xataa murugo. guuldarrada si aad u gaadho wadadan dhamaadkeeda waa inaad noqoto qof u dhoola cadeeyo guuldarrada. guuldarrada waa inaad u tixgelisaa inay ka mid tahay nolol maalmeedka caadiga. waa inaanad argagixin oo aanad ooyin marka ay kula soo daristo guuldarro balse waa inaad u dhoola cadaysaa siina wadaa socdaalkaaga. diidmadu waa inay noqotaa saaxiib kugu dhow. waxaad diidmo la kulmi kartaa saaxiibada, qofka aad u shaqayso, dadka ama xataa adduunka oo dhan. waa inaad adkaysi u yeelataa diidmo kasta oo aad la kulanto aanad noqotaa mid u dhoola cadeeya siina wada socdaalkiisa. niyad jabku waa inuu noqdaa saaxiib kale oo aad ku xisaabtanto. haddii aad tahay qof han sare leh niyad jabku wuxuu kusoo booqan doonaa in ka badan inta uu booqdo dadka kale. guushu waxay u baahan tahay qof adkaysi u leh inuu ka gudbo niyad jab kasta oo soo waajaha, dib u heegan geliya ciidankiisa, diyaarsada agabkiisa, bedela xeeladiisa, horena u socda. intaa waxaa dheer in qofka guuleystay ay ka qaado mas'uuliyadiisa. qofka guuleystaa maaha ka yidhaa waan guul daraystay isagoo u aanaynayn nasiibkiisa, duruufaha iyo deegaanka ku xeeran, balse waa qof aaminsan Ilaahay, ku kalsoon naftiisa, kalsooni buuxdana ka haysta in mustaqbalkiisu ku jiro gacmihiisa. gunta iyo gunaanadka haddaynu erayo ku soo koobno, guushu waxay u baahan tahay